ومدرستي ugu horeysay deegaanka degmada magaalo cad madrasad laga aasaaso macadkiina waan soo wadnaa dadaalkiina waan wadaynaa wixii dhimanna waa la dhamaystirayaa ehlu sharafka ay nooga kala timiday magaalooyinka Boorama iyo Wajaale iyo dhammaan deegaanada nagu xeeran qurba joogta iyo qolqol joogta inooga soo kici timay Boorama si ay khayrkan uga qayb galaan madrasadana khayrka ku bixiyo hadda hilaal iyo khayr ay nagala joogaan والدada ardayda iyo ardayda maanta xafladan aanu fadhino saxaafada iyo cid kasta oo mudan oo halka joogta isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Awdal Sheekh Xaamud oo hadda soo galay dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta isaabka salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marka hore ilaahay baan mahadnaqaynaa inoo soo tageliyay munaasabadan xafladan imtixaanka in maanta halkan isugu nimaadno ka qayb galno ardayda jawaayista guddoonsiino ardayda ku guuleystay imtixaanka marka xigtana waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha qurbajoog iyo qolqoljoogba leh ee gacanta buuxda ka geysta madrasadani inay socoto run ahaantii madrasadani way 10 jirsatay madrasadani way 10 sano jirsatay 10 sano ayay jirtaa waa madrasadii ugu horeysay deegaanka degmada magaalo cad madrasad laga aasaaso 10 sano ka hor alxamdulillah difacadii afraad baa maanta walow ay yartahay ka qalin jabinaysa runtii wax ilaahay loogu mahadiyo nimcada iyo khayrka halka aan ka aasnay 10 sano ka hor iyadoo wax madrasadii deegaanka dhan ana ka jirin maantana halkaas uu shacab sheegay waa 14 madrasadood deegaanka degmada magaalo cad 14 ka madrasadood way ka mid tahay waxa hooyo u ah madrasada Sheekh Nuur ila la takalabo wax ka farcamay markii la arkay nimcada taala madrasadan markii la arkay khayrka ka socda madrasadan markii la arkay caruurta bay'adda ku nool inay ka duwan tahay caruurihii deegaanada kale ku noolaa waxa dhamaanba deegaanada laga abaabulay madrasado kale oo ay hooyo u tahay madrasadan oo tafiirteedii khayrkii baa faafay sharkii deegaanada iyo caruurtii gaafafkii caruusay tagaysay baa soo yaraaday ilaahay wuxuu noo suurta galiyay halkan oo animidna iyadoo halkalaas oo goob doorasho hal qol ka dhisan yahay team dhan oo rag dad badan markii ahaa oo ay ka aniga iyo Cabbe iyo Cabdikariim Daayir Fadan oo hadda xanuunsanay India jooga Allah caafiyo u duceeyo uu ka mid yahay Cabbe Aadan Cumar oo xildhibaan uu ka mid yahay rag badan oo noocaas ayaan halkan ku astaynay in qolka dhisan khayr laga shaqeeyo muddo kadib oo dadkii deegaanka shir la galay way noo suurta gashay in ilaahay noo aqbalay way suurtooda annagu markaa jeebkayga kama imanne hindisaha waxa lahaa in madrasada deegaanka laga sameeyo walaalaha qurba joogta oo imka ay nagala joogaan hodan iyo markhayr iyo waxa koow hindisaha lahaa oo soo gaarsiiyay fikirka annaguna fikirkoodii ku shaqeynay walaasheen hodan maxamed nuur faahiye ilaahay caafimaadkii caruurtaba oo hagaajiyo arsaaqadana ha waasiyo faadimo xasan nuur ilaahay awlaadda ha barakeeyo arsaaqadana ha ballaariyo walaasheen siraad ibraahim cali ilaahay awlaadda ha barakeeyo walaha khayrka ku bixiya cabdiraxiim ibraahim faarax cabdiraxiim waa dhowr maxamed cali oo loo yaqaan maxamed ciid walaalo badan oo qurbaha jooga oo hantidooda xoogoodii iyo xoolahoodii iyo fikirkoodiiba galiyay madrasadan inay dhaqaaqdo way jiraan walaalo badan oo qolqol jooga oo ka mid yahay maxamed nuur faahiye ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro hantida ula baxo oo bil qaata madrasada dadka sheegayo dhan intoo jadoona sameynay ayuu qof walba bil buu qaataa hilaal baa ka mid ah halka ayna hor fadhida khayr oo hadda inala joogtaa ka mid ah waxa ka mid ah walaalaha khayr ka soo bixiya nin la yiraahdo Cabdi Ali Xasan waxa ka mid ah nin la yiraahdo Idris waxa ka mid ah Cabdilaahi Ali Nuur Cabdilaahi Ali Shabiin waa 5 qof oo gudaha jooga iyo 7 qof oo dibadda jooga markii hore dhammaan qurba joog baa soo bixi jirtay laakiin marka 6 qof baa gudaha ka bixiya runtii sidaas 12 bilood loo qaybsaday wixii kale khayr ee soo biirana iyagu ma kala tashanaa runtii sidoo macalinku sheegay madrasadu kalaaskan ay ahayd kalaaska kaliya markaan aragnay ardadii oo badatay dadaalkii oo xoogeystay waxaan iqtiraacnay maalin soo kala in fasal labaad la dhiso halka waxa ku ballan qaaday lacagtii hore bixiyay Salaaman Xasan Nuur Allah ha naxariisto miisaanka xasanaadkana ugu daro oo $500 ku yabahay halkii bay ka bilaabantay qolkii labaadna maalmo kadib baan dhisno kanaha oo 12 cishaan qolkan uu igu suurta galay inaan ku dhiso markii walaalihii lacagtii ay nagu soo dhiibeen ay dhinaca khayrka lama boowaayba haddii khayr loo dhaqaaqo go'aan la qaato caloolada la qaato khayrku ma baha kadaba
markii macallinkii isku helay laba kalaas oo ardaydii ku kala jabiyo uguna faa'iideeyo diintii quraankii waxa haddana aan ku dadaalay sidii aan macallinka ugu heli lahayn qol u galo isagu tiina annagoo la kaashanay walaalahay qurbaha jooga ee hodan iyo faadma xasan nuur iyo cabdiraxiim iyo maxamed cali maxamed ciid afartaas ayaa la kaashaday lacagtii baa nagu soo shubay qolkii macallinkana waa la dhisay alxamdulilah ilahay baa suurta geliyay runtii haddaba madrasadani tobankaa iyo dhowrkaa madarasood bay ka hooyo tahay waxaan u mahadnaqayaa macallinka waqtiga badan gelay macallimiintii hore 2 sano iyo waxoogaa bay markay joogeen deegaanka kamay soo jeedin way u adkaysan waayeen waa meel baadiyo waad aragtaan macallinka hore deegaanka dadka ka soo jeedaan wuxuu u dhabar adeygay inuu muddada intaa leeg 8 sano oo dhow joogo intaasoo difcadoodna ay ilaahay u suurta geliyeen ka baxaan waxa weeyaan deedna macaakii iyo dhadhankii diinta markii runtii dekeridii waxma qabanayne gudyahana oo kula shaqaynayna waalidkuna gacan bay kulana haddii aanu waalidku ardayda soo huraynin una dabada ka soo riixayn doonarska dhaqaalaha bixinayana aanay jirin macallinkuna aanu tabcayn meelahanima soo bixeen markii la isla helay walaalihii khayrka jeclaa khayrkii soo bixiya macallinkii xaadiroon dhinacna u dhaqaaqayn waalidkii oo garowsaday awlaaddoodii inay keenaan ilaahay xamdigii madrasadii saasay ku socotay ilaa meel la ku gaadhay waxa dhashay markaa in deegaankii kale deegaanka magaalo cad markay khayrka arkeen degmo laga bilaabo madrasado runtii madrasado badan oo xawl u soconayo oo aad iyo aad loogu dadaalayo ayaa deegaanadeena ka jira reer sheekh nuur waxaan leeyahay waalidka gaar ahaan waxaan leeyahay madrasadan maanta 75 qof baa dhigta 75 waa waalidiin 60 waa arday 230 arday waxaan noo suurta gashay inaan xerees ka dhigno annagoo qalin quraankiina u keenay oo 5 difcadood ayay ama 5 xalqadood bay qalin quraanka lagu dhigtaa 12 qalin quraan baa keenay 7 rasiif bay yaalaan 5 qalin quraanna way shaqeeyaan oo 5 xalqadood ee kala sareeyay iyo ka faa'iideysta 230 baa xereesa inta kalena sidii caadiga baa u dhigtaan waliintu waa 15 waxaan aad uga xumahay madrasada Sheekh Nuur oo hooyadii madrasadaha oo 10 sano jirsatay hooyo ama aaba qalin jabinay ilaa hadda ma hayo dhaliisha waalidkay dul hoganaysa quraanku kuma xidhna uu yar yahay carabka ay weynaadeen ma shaqaynayso reer Sheekh Nuur fursad deegaanada kale aan helin ayaad hesheen in maalin walba istaata 2 jis ama 3 jis gaadha magaalada u guurta layra oo jis amay marayaan ama alfkiiba Soomaaliyeed joogtaan ugu nimaadna la yiraahdo aad baan u dhaliilaya jaanis ka heshay qeyrkiin ma helin deegaanadan ka hor baad fursada heshay waxaan rajaynayaa maanta in dumar soddonka dhameeyay qalin jabiyandii ma dhicin ma dhacayso waan ku dhaliilaya war waa jaanis aad hesheen oo qeyrkiin inka madrasadii 3 sano jiray ama 4 sano jiray madrasado badan 4 sano jirta 3 sano 2 sano madrasadaan deegaan ku jiraan runtii dumar baa dib dhow sis maraya waa la idin dhaafay laga bareebay laga badi baan ku dhacday midda waan ku dhaliilaya waalidow waxa weeyaan qaybtiina qaata fursada iyo nimcada ka faa'iideysan ilaahay halkan oo halkii khayrka laga ulkumaya waxaan maanta halkan idinka ballan qaadaya walow si ana ka hor dhaca jecelayn qolan macad dhisa la igu soo xidhay macluumaadkii madrasada waa siiyay macadkii ardaydan markay halka ka baxaan ay gali lahaayeen uu soo socdaa ballantaa waan haynaa taana ku bishaaraysa marka horena fursad aan deegaanada kale helin badasheen maantana macadkii halkan waa laga dhisayaa walow dadka khayr ka shaqeeya deegaanka madrasadaha markaas ugu nimaadno lagu balansan yahay in macad santara la dhiso oo dhammaanba madrasadaha deegaankeena ilaahay ku manaysay iyo khayrka la iskaga dada santar u noqota taasina waa tu guud oo waan dhisi doonaa meeshii la isla gartaa laga dhisi doonaa macad guud macad madrasadan u gaarana balanteedii waan haynaa macluumaadkiina waan u gudbinay taana ku abshiraysa idinka annaga taasaan nala daadana horumarinta iyo khayrka aan midigta ku hayno oon idinla socodsiino oo soo jiidno idinkana waxaa idinla daa war idinka iyo ubadkiinuba fursada dahabiga ka faa'iideysa oo diinta barta oo hormuud baa deegaanka u haydeena waalidkiinuna hormuud ha u ahaado madrasadan ardaydeedu tiradeedu hoos baa u dhacday awal 120 130 117 baan ugu imanay maanta waa 570 maxaa dhacay waxa dhacay dhammaanba markii khayrka la dhadhamiyo halkan dhagaxaas ardayda ka mid madrasad baa laga furay bar bay goorsatay halkan dabacada madrasad baa laga furay tanay bar ka goorsatay halkan tulli madrasad baa laga furay bar bay ka goorsatay hindheysaan hoose madrasad baa laga furay bar bay ka goorsatay dee khayrkii waa la boobaya waa la tartamaya macallino waa la tartamaya macallimiin baa kula tartamasa ardayay waa la tartamaya ardada madrasada dhigata kula tartamasa waalido waa la tartamaya oo waalidada kale madrasada loo sameeyay baa kula tartamaya
haddii ardaydiina laga badiyo marka la isku yimaado macallinkaa laga badiyey imtixaanka marka madaarista laga qaadayo macallimiin newtral oo dhexdhexaada qaada ma qaado macallinka dhiga ardayda madrasada ardaydeeda laga badiyey kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad geli waayaan dhaliisha macallinkaale waalidkaale waayo ardaygu waxaa kor u qaado motivate gareeya marka waalidkii macallinku isku tiirsan yihiin wuu dadaalaya marka haddii ilmahaaga laga badiyo waalidkii madrasada kale waalida uu kaa badiyey haddii ardaydaada laga badiyo macallin oo macallinkii madrasadaha kale uu kaa badiyey arday haddii laydinka badiyo qayrkiin baa idinka badiyo idinkaas dhulkaas dhigay dadaalka hala labanaa qof walba qofkii dhigiisa siduu ugu jirib dhigi lahaa uu ugu babac dhigi lahaa ha ka fikiro waalidkaas iskaga celin lahaa hadday dhiirigelin tahay hadday garab joogsi macallin tahay hadday ilaalinta macallinka tahay idinkaa laydinka rabaa macallinkana waxaa laga rabaa qayrkii waxay leeyihiin in madrasadaha kale sida loo ag joogseen waalidka gacanta loogu hayo inuu macallinkuna waalidiinta gacanta ugu hayaa laga doonaya oo galabtii halkan iyo habeenkiiba uu wacyigelin ku siiyo ku baraarujiyo diinta ka dhaadhiciyo halkan uu barana wacyigelina siiyo qur-aankaana akrisiisa baro oo ugu dadaalo macallinkaa laga rabaa taana waalidkana waqtiga ina bixiyaan baa laga rabaa ma jecli waqtiga inaan sii dheereeyo waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta ama culimada mudakarka ah ee naga soo booqday magaalooyinka kala duwan ee uu hormoodka ku yahay sheekheena sheekh xaamud nadiif ahna isuduwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka awdal oo runtii maanta farxada u tahay waa shaqadiisii waa nimcad maanta wuxuu ku faanaya weeye madrasadaas waxay xudun u tahay weliba diloo dhowr iyo 10 madrasadooda degmada deegaanka magaalada dhowr iyo 10 madrasadooda sodomeeye madrasadooda dhowdhow baad xudun u tihiin reer sheekh nuurow jaanis ka haysaan xaggana waa laydinka yimaadaa xaggana waad ka tirsantihiin dhinac walbaad ka tirsantihiin war jaaniska ka faa'iidaysa fursadda ummaddu aana helin ka faa'iidaysa aad iyo aad baad mahadsantihiin haddaan hadalka dheereeyana raalli ha laga ahaado macadkiina waan soo wadnaa dadaalkiina waan wadaynaa wixii dhimanna waa la dhammaystirayaa idinkana waxbaa idin saaran annagana waxbaana saaran walaalaha qurbaha joogana ee waqtigooda iyo hantidooda iyo dhaqaalahooda geliyana mar labaad iyo mar saddexaad ee hilaal iyo umalkhayr iyo nagala joogaan waan u mahadnaqanaa waxaan marna la ilaaweyn foosiye cabdi dugsiye iyo walaasheed ilhaan iyo inta qisamaha jecel xanimo xasan nuuro maanta ina soo haleeli weday oo fasax qaadatay oo guddidan nagala tirsan halkan oo mar walba intaa madrasada deegaanka midigta ku haya khayrkana aad u darban ilahay miisaanka xasanaadka ugu daro cid kastoo khayr ka shaqaysa ilahay miisaanka xasanaadka ugu daro cid kastoo qur-aanka baristiisa iyo barashadiisa iyo u dadaalkiisa hanti iyo fikir iyo talaba ku bixisa ilahay miisaanka xasanaadka ugu daro dhammaanteen ilahay iskaga jeclaysiiyo ilaahay dhulkeenna khayrkaa ka hilaacay wanaaggaa ka hilaacay tacabkaa aan 10 sano ka hor aasaasnay maanta intaasoo madrasadood maraya runtii anoo guddideena halka ka tirsan waxaan ku faanaya inta madrasadoodba tarantii halkana ka baloonayn yihiin waa tarantii madrasadan waa reer sheekh nuurow sogaada idinkaa laydinka tafiirmee ha laydinka helo mudnaantaad lahaydeen aad iyo aad baad umahadsantihiin wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum